بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan bilaabi doonaa qaab qoraalka daraasadda inaan barano inagoo ka bilaabi doono wax loo yaqaano chapter 1 balse intaan chapter 1 bilaabin waxaan rabaa overview kooban inaan sameyno hore waxaan ugu soo heshiinay laba qaab ama daraasadda qoristeeda ama inaan isla wada fahmano laba qayb aan u qaybinay kow inaan isla fahmno qaab dhiska dulucda iyo sida loo dhiso video yani muuqaaladii ka horeeyay waxaan iskula soo fahamnay qaab dhismeedka dulucda ama waxa loo yaqaan topic waxaan soo sheegnay afar qayb inuu ka kooban yahay oo ahaa IV iyo DV iyo unit of analysis iyo area of study haddii aad qaybtaasi soo fahamtay qayb labaad waxaa jirta asna la socday qaab dhiska dulucda taasoo ahayd wax loo yaqaan dimensions waxaan soo sheegnay waa waxyaabaha laga cabirayo IV-gaaga ama DV-gaaga idan haddii aan isla soo fahamnay marka qaab dhiska dulucda u taalo waxaan ku soo heshiinay ciwaan baa soo qaadanay ciwaankaasi wuxuu ahaa marka employee satisfaction iyo waxa loo yaqaan productivity inagoo u baarayno shirkad loo yaqaan Kai Company oo isla Muqdisho ku taala idan marka ciwaankaas ku shaqeyn doonaa maadaama marka ciwaanka koowaad aan soo fahamnay maanta waxaan noo dhigo marka ciwaankeena labaad maanta iyo wixii ka dambeeya waxaan isla kor istaagi doonaa inaan barano ama bilaabno qaab qoraalka barashada qorista daraasadda idan marka qorista daraasadda marka aan bilaabno ilaa iyo maanta ilaa wixii ka dambeeya ugu yaraan waxay qaadan doontaa Allah subhanahu wa ta'ala og idan marka boogna saa ogna wuxuu ka kooban yahay chapter 1 chapter 2 chapter 3 intuba ilaa iyo chapter 5 waan isla gaari doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo idan marka maanta haddii aan bilaabno marka chapter 1 keena chapter 1 ugu horeyn horta wuxuu ka kooban yahay 9 qayb loo qaybiyaa qofkii buugga haysta wuxuu tagi karaa page-ka 49aad markii uu tago wuxuu halkaas ku arkayaa ciwaan ah cutubka loo yaqaano 7 oo ah diyaari buugga daraasadda runtii cutubkan wuxuu in badan ka caawinayaa inaad fahamto qaabka loo qorayo daraasadda sidaas awgeed marka buuggan wuxuu ka koobnaan doonaa 5 chapter shantaas chapterna waxaan ku eegi doonaa ciwaanka aan soo wada qaadan oo ahaa employee satisfaction iyo productivity oo qaabkan u soo dhisnayna aan si practical oo cad oo yani wadada aan soo marnay iyo weyga aan soo marnay dhamaan aan ku wada cadaynay videogaasiti aniga ku la shaqeyn doono wax loo yaqaan dimensionadii aan hadana asagay la soo shaqeynay sidaas awgeed marka chapter 1 keena marka waxaan ka bilaabi doonaa chapter 1 anagoo eegi doona shanta chapter ee buugga ka kooban yahay kulli waxaanay idinka akhrisan doono inta buugga haysato intaan haysana isagoo duuban waan soo dhigi doonaa asigana buugga 3 qayb loo qaybiyaa oo waxa kamid ah wax loo yaqaan preliminary pages oo pageska hore ah ay kamid yihiin meelaha lagu soo cadeeyo title page-ka declaration-ka student declaration ama supervisor declaration-ka approval page-ka dedication-ka waxaas maxaa la yiraahdaa isla buuggan ay hagaha cilmi baaraha ay kugu wada yaalaan buugga sidoo kale qaybtiisa labaad waxaa loo yaqaan text pages ama waa 5 chapter ee xambaarsan dulucda ama fahamka ama macluumaadka daraasadda ay ka hadlayso ee qaybta ugu dambeysa oo loo yaqaan appendix pagesku waa pageska ugu dambeeya ee lagu soo bandhigo wax loo yaqaanay sheegay questionnaire-kaaga lagu soo bandhigo costiga qarashaadka kaaga gala buugga wax lagu soo dhigo sheeg budget-kaaga iyo waxyaabaha lamid ah idan marka anaga xoog waxaan saari doonaa wax loo yaqaan text pages marka waxay ka kooban tahay marka ilaa waa 5 chapter aan soo wada qaadanay aan wada qaadan doono afwan text pageska marka buugga markaad haysato waxaa ka eegi kartaa iyagoo diyaarsan page-ka 78 ilaa 122 halkaas ay ku wada taalaa text pageska waa qaybta loo yaqaano chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 ilaa chapter 5 waxa loo yaqaan text pages buuggaaga waxa laga doonayaa inuusan ka yaraan wax loo yaqaan 45 page ilaa 60 page 60 bog aan ula jeedaa waa inuusan ka yaraan 45 60 uusan ka badan waa inta u dhaxaysa adiga 46 50 59 meelahaas inuu buuggaaga ahaado sidoo kale qaybtaaneti waxaa lagu lambarayaa nambaradaaneti Roman number Latin numbers loo yaqaano idan marka waxaan isla eegi doonaa chapter 1
chapter 1 sidoo kale daraasadda soo diyaarsan waxaa ka eegi kartaa boga 78aad. Buugga marka chapter 1ka ama thesis-ka ah waxaa lagu magacaabaa introduction-kaasi marka wuxuu ka kooban yahay 9 qaybood. 9kaasi qaybood waxaa loo yaqaan marka waa kuwaana hadda hoos ku tixan. Kow waxaa ugu hore waxaa loo yaqaan background of the study, problem statement, purpose of the study, specific objective, research questions, scope and limitation of the studies, significance of the study, operation definition of the key term, iyo conceptual framework. Qaybaan iskula eegi doonaa, balse saddexda isbuuc ee soo socoto waxaan isla eegi doonaa background of the study. Sidoo kale intaanu dhan wax caqabada ama culays ay leeyihiin malahan. Inta badan chapter 1ka waxaa ugu culus labadan ciwaan ee ugu horeeya ee loo yaqaano background of the study iyo problem statement. Haddii daraasadaada aad ku soo guuleysato inaad background of the study aad qorto, sidoo kale aad qorto waxa loo yaqaano problem of the statement, daraasadaada dhan way ku dhameystiran tahay. Wax dambe caqabada ama culays kala kulmi doonto malahan, waayo inta kale مثلا tusaale ahaan ardayga waxaa la siiyaa 3 bilood la siiyaa inuu daraasada ku soo diyaariyo. Haddii background of the study-gaaga ugu yaraan waxay qaadanaysaa bishii ugu horeysa baa dhahan. Background of the study uu aad u adag yahay, waayo 4 qaybood waaweyn uu ka kooban yahay oo ah historical dimension, theoretical dimension, conceptual dimension, contextual dimension. Waxa aan sheegay waan isla wada arki doonaa. Laakiin background of the study-gaaga ugu yaraan 3 isbuuc 4 isbuuc ugu horeeya asiga diyaarintiisa laga rabaa, waayo waxa ka hadlaysa waxa loo yaqaano DV-gaaga xooga saaraysa, gaabka daraasadaada xooga saaraysa. waxaasna waa isla eegi doonaa. Problem statement-gaasna 4 qaybood oo ka kooban yahay. 4 qaybood oo ideal ah, actual ah, standard ah, wax dhammaan wada arki doonaa. Ida maanta marka waxaan bilaabi doonaa chapter 1 cutubkeena koowaad ama buugga daraasada koowaad, background of the study aan bilaabi doonaa. Ida marka 3 isbuuc ee soo horeysa waxaan eegi doonaa 4 qaybood oo ka kooban yahay background of the study. Background of the study maxaa tahay? Background of the study waa qaybta koowaad ee chapterkeena koowaad, taasi oo oo horodhac ka bixisa macluumaadka ay daraasadu ka hadlayso. Macluumaadka daraasada ka hadlayso waa maxay? Wuxuu ahaa ciwaanka aan isla soo qaadanay oo ahaa employee satisfaction iyo productivity. Ciwaanka aad adigu haysato, qof walba ciwaanku haysto ay macluumaadka gudbinayso waa isaga hordhacad ka sii bixinaysa. Waxayna u qaybsantaa ilaa 4 qaybood. 4taasi qaybood oo kala ah sida hoos ku xusan. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa historical dimension, qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa conceptual dimension, qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa contextual dimension, qaybta ugu dambeysana waxaa loo yaqaanaa theoretical dimension. Inkastoo qaybtan inta badan aan la qorin, anaga waxaan xooga saari doonaa 4taasi qaybood. Ida marka haddii background of the study aad maqasho waa 4tan qaybood ama 3 qaybood ee ugu horeysa ee laga hadlaa. Inta badan historical dimension ka hadla. Historical dimension inta badan ma xooga waxay saaraysaa wax loo yaqaano DV-gaaga. Anaga DV-gina wuxuu ahaa waa productivity. Ciwaankaaga markaad fiiriso labada magac kan soo horeeya waxaa loo yaqaanaa IV, kan dambe waxaa loo yaqaanaa DV. Runtii IV iyo DV iyo unit of analysis iyo area of study inaan ku warayna ma malinayo, waayo xiisadii ku horeysay ugu yaraan 25 daqiiqo ayaan isla soo baadan dhignay. Ida marka historical dimension-ku 3 qaybood oo ka kooban yahay. Aan ku hormaray background of the study 4tan qaybood oo ka kooban yahay, inagoo xooga saari doona 3 qaybood ee ugu horeysa. Maanta marka waxaan ka bixi doonaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo, haddii noo saamaxdo waa waqtigu noo saamaxo historical dimension. Okay. Historical dimension buugga haddaad haysato waa ka wada dharki doontaa. Historical dimension-ku marka waa qaybta ugu horeysa ee background of the study. Waana qaybta xooga saarta ama sharaxaad ka bixisa wax loo yaqaan DV. Historical dimension waa maxay? Waa qaybta ugu horeysa ama qaybta koowaad ee background of the study. Waa qaybta xagga xooga saarta ama sharaxaad ka bixisa wax loo yaqaan DV-ga ee daraasadu ka hadlayso. Inaga marka DV-gan ka hadlayno muxuu ahaa? Waa productivity. Waxa ayna u qaybsantaa ilaa 3 qaybood oo kala ah. 3 qaybood waxay noqonaysaa marka waxaa soo qaadanaysaa DV-gaaga. Waxaad tagaysaa meel loo yaqaan Google Scholar-ka. Markaad tagto Google Scholar-ka waxaad ku qori doontaa ama aad raadin doontaa waxa laga hadlay DV-gaaga.
DV-gaaga marka aad qaadato kadib waxaad samayn doontaa globally marka lagu leeyahay waxaa loola jeedaa maxaa laga yiri ama waxyaabaha laga aaminsan yahay DV-gaaga maxay tahay caalamka aan isla fahamno yani mas'alada inaad fahamtaa waa qayb kamid ah jawaabta. إذا مركا historical ماشي مركا تقريسو ماشي مركا كأركز في historical معناها محاواي وتاريخ أهانا دباريسا DV جاجا historical ماشي كنا وحكي هذا الشاب بس DV جاجا ولي أي في إيميلها اسمها ديسي DV جينا محوها productivity بوها وبحنا جوجل سكور كتيجي دونا وحنكرادين دونا وحلو يقانو أما عوان كاجا DV جيسا وحتكرادين يسا جوجل سكولر كا global marka lagu leeyahay waxa loola jeedaa marka DV-gaaga saddexda nooc uga hadli doonta. Kow global waxa weeyaan daraasadaha caalamka maxay ka dhahayn. Mesela daraasad lagu qoray Jarmalka daraasad caalamka marka lagu dhaho waxa loola jeedaa Africa ka tagaysa. Waxaan Africa ahayn maxaa laga yiri yani America ha noqoto North America ama South America ama Asia ha noqoto ama Europe ha noqoto wadamadaas oo dhan soo qaadanaysa. productivity ama DV-ga daraasadaada maxay caalamku ka dhaheen. Tusaale ahaan buug laga qoray Jarmalka soo qaadanaysaa waad yani maxaa laga yiraahdaa waad soo qaadanaysaa buug laga qoray Hindiya soo qaadan kartaa buug laga qoray Indonesia soo qaadan kartaa buug laga qoray Canada soo qaadan kartaa buug laga qoray Mareykanka soo qaadan kartaa yani caalamka DV-gaaga global maxaa laga dhahay. Markaad ciwaanadaasi qorto waxba yani ha wareerin yani waxaad ku siin waa theory ahaan ku siin practical way noo dhaman tahay yani kulli waan isla wada sameyn doonaa. Okay globally marka waa kan iyadoo af Soomaali halkan ay ku qoran tahay fiiri marka waa qaybta ugu horeysa ee historical dimensionka taasi oo soo bandhigta xogta DV-ga daraasadaada iyadoo xooga saareyso daraasada caalamka laga qoray. Maxay xooga saareysaa daraasadaha caalamka kala laga qoray DV-gaaga maxay ka dhaheen. Marka intaas soo qaadato oo dimensionkoodana citationkoodana asiiso qaybta labaad waxaa soo qaadanaysaa continent waxa weeyaan in Africa weeyaan Africa maxay ka tiri daraasadaada hadana waxaa soo qaadanaysaa daraasad laga qoray DV bisaan joognaa wali productivity raadinaysaa daraasad laga qoray South Africa daraasad laga qoray Sudan daraasad laga qoray Egypt ama Masar daraasad laga qoray Nigeria daraasad laga qoray Malawi daraasad laga qoray Ghana yani wadamada Africa marka laga reebo wadanka aad joogto ee Soomaaliya ayaad soo qaadanaysaa wadamadaas sida hadda aan soo dirin mesela daraasad laga qoray South Africa oo kale maxay ka tiri DV-gaaga waa soo qaadanaysaa citationka iyo qofka qoray ama qoraaga qoraa soo qaadanaysaa marka macluumaadkaas bixiso marka ugu dambayso waxaad sheegaysaa wax loo yaqaan nationally waxaa loola jeedaa wadankaaga maxaa laga yiri DV-gaaga hadana Soomaaliya imaanaysa daraasad laga qoray Soomaaliya Muqdisho ha noqoto Hargeysa ha noqoto Kismaayo ha noqoto Garowe ha noqoto meel walba ha noqoto daraasadaha laga qoray ee DV-gaaga ka hadlay ama productivity-giina ka hadlay yani productivity sababta uu laabanay waxay tahay waa DV aan isla fahmi karno waayo ciwaanan soo qaadanay hore waxaan ku sheegnaa yani theory ka bixi doono ee practical oo bixi doono. إذا مركا وحن سلاقينا مركا national محل جيري productivity جاجا واحد سوق هذا الساد دراسة لو قري شركة وويني وضنك DV جاجا محيك دهين national مركا جوكتو وحلا جارا ومركا نتقرتو وحلا يقانو جاب كوالا جارا يعني أديكو شيء جايو دراسة ده هذا صوابته يوجد بنت هاي دراسة ده هكله صوابته واحد شيء جزء سيده وكله بربلام كأد وقري دونتو دراسة ده إذا واحد شيء مركا maanta waxaan ka bixi doonaa waxa loo yaqaano background of study qaybtiisa koowaad ee ah historical dimension marka qorayna marka saddex qaab aan u dhigayna historical macnaha waxa weeyaan horasa ugu soo sheegay DV-ga daraasadaada inaad ka bixiso yani sharaxaad inaad ka bixisid sharaxaad markaad ka bixinaysa marka saddex qaab aan u dhigaysaa global caalamka maxaa laga dhahay continent qaaradda aad joogtay Africa maxaa laga yiri national maxaa laga yiri waxaa laga yaabaa Soomaaliya inaadan joogin ee aad joogto wax loo yaqaan Turkiga ama aad joogto yani Uganda ama aad joogto Nairobi Kenya aad joogto daraasad aad ka diyaarinaysid haddii aad daraasad ka diyaarinaysid globally waxaa ku noqon doona qaaradda aad joogto ma ahayn qaaradaha kale maxaa laga yiri continent qaaradda aad joogto marka laga reebo wadankaaga
nationally markaad joogto wadankaaga uga hadlaysaa mujida marka hore waxaad ka soo hadashay caalamka maxaa laga yiri marka labaad waxaad ka hadashay qaaradda aad joogto maxaa laga yiri marka saddexaad waxaad ka hadashay nationally markaad joogto maxaa laga yiri okay intaas markaan soo sheegno marka aan ku laba celiyo maanta waxaan qori doonaa ugu horeen waxaan ku soo heshiinay daraasadeena koraan ugu laabanaya kow si aad daraasada u fahamto xiisadan horta waxaan ugu talagalnay ardayda aan xiisooyinka gaarka soo xaadirin laga yaabay ardaydan waa taqaanaa dee waa qofba lacagtii u diiday qof qarash iyo waxa u diiday waqtiga u diiday idan saas awgeed inaad halkan ka hesho xiisada yani iyo wixii ku qancin lahaa ama yani hol fududaysin ay ku noqoto idan waxa hore ugu soo heshiinay si aan daraasada iskula fahmno inaan laba qaab u dhigno qaybta koowaad waxaan isla fahmaynaa qaab dhiska dulucda ama toobiga ciwaanka qaabka loo dhiso inaad fahamto qaab dhiska dulucda waxaan ku soo sheegnay afar qaybood inay ka koobneed IV DV unit of analyze area of study waan isla soo wada sameynay fiidiyowga ka horeeyay fahamka dulucda fiidiyowga labaad waxaan ku soo sameynay dimension maxaa la yiraahdaa dimension waxaa la yiraahdaa waxyaabaha aad ka cabirayso IV gaaga ama DV gaaga okay intaas marka aan isla soo qorno kadib maanta waxaan bilaabnay marka qorista fahamka daraasada ama fahamka qorista daraasada marka chapter 1 aan ka bilaabnay chapter 1 sagaal qayb oo ka koobnaa qaybtiisa kood waxaan soo qaadanay background of the study afartan qayb oo ka kooban yahay historical dimension okay maanta marka waxaan qaadanaynaa marka historical dimension hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan isla tagi doonaa practical ahaan isla tagi doonaa halkan aan ka bixinaa waxaan tagi doonaa meesha loo yaqaano Chrome-ka soo baxsan doonaa Chrome-ka markuu noo soo furmo kadib markii Chrome-kaaga aad gasho oo Google-ka saanka ugu soo kaco hadba waxay ku xirantahay marka application-ka adiga isticmaasho browser-ka adiga isticmaasho hadba Google-ka inaad tagtaa laga rabaa Google-ka marka aad tagto kadib halkan waxaa ku qoraysaa Chrome ku qoraysaa waxaa ku qoraysaa Google Scholar ku qoraysaa Google Scholar Google Scholar markaa ku qorto halkan aad geli doontaa halkaas ku qoran tahay Google Scholar qaabkan ayuu kugu soo baxayaa qaabka markuu kugu soo baxo marka waxaa jirto step yar oo aad sameynaysid maanta waxaan ka hadli doonaa marka waxaad furan doontaa wax loo yaqaano browser folder furanaysa si ay isku qasmin waxa aad soo degsan doonto folderka marka aad soo degsato halkan waxaa ku shubanaysaa folderkaaga waxaa leedahay مثلا ciwaankaaga u baxsanaysa magaca doonta u baxsanaysa مثلا hagaha ardayga tree u baxso marka u baxsato kadib waa furanaysaa marka aad furato halkan waxaa ku sii dhex abuuraysaa saddex folder مثلا folderka koowaad oo kale waxaa ku qoraysaa in global ku qoraysaa in global maxaa ula jeedaa meeshaas waxaad ku shubanaysaa buug walba oo global ahaan ku shubanaysaa sidoo kale waad bixaysaa mid labaad furanaysaa waxaad ku qoraysaa in Africa okay mid saddexaad abuuraysaa waxaad ku qoraysaa in Soomaaliya waxaan rajeynayaa la fahmayso buug walbo in global ya halkaas ku shubanaysaa buug walbo in Africa halkaas ku shubanaysaa buug walbo oo in Soomaaliya halkaas ku shubanaysaa okay Google-ka marka ku soo kaco halkan waxaa ku qori doontaa DV-gaaga waayo historical dimension-ka wuxuu inta badan xooga saarayaa ama uu ka hadlayaa dhahnay DV-gaaga ama ciwaankan ku soo heshiinay anaga marka wuxuu ahaa kow aan isa soo qaadanay wuxuu ahaa employee satisfaction and productivity at Kai company in Mogadishu Somalia marka ciwaankayna marka kan uu ahaa oo ku shaqeyn doono oo yani ciwaanka daraasadda aan ka qori doono idan productivity muxuu ahaa DV-ga daraasadeena historical dimension-kana maxay ka hadashaa marka historical dimension-kuna waxay ka hadashaa DV-ga daraasadda idan marka DV-ga daraasadeena waa productivity marka historical dimension-kuna waxaan dhahnay saddex qayb loo qaybiyaa oo ah in global kow in Africa labo iyo in Soomaaliya
saddexdaas u qaybinayna oo ahayd in globally, in content, in nationally. Idan marka maanta waxaan ka hadli doonaa dimension-keena historical dimension, waxaan ka sii hadli doonaa in Africa ka hadli doonaa. Idan marka waxaan qaadanaynaa productivity-geena. Markaan koobi gareysano halkaan aan gasho doonaa. Waxaan leeyahay productivity maxaa laga yiri wadan magaciisa raacinaysa مثلا in Sweden iska dheh. In Sweden markaad tiraahdo meeshaan waxaa kuu qoran fiiri anytime aa kuu qoran. Anytime waxaa loola jeedaa buugaagta xilliyada la qoray xilli walba kuu soo qabanay. مثلا hadda fiiri buuggan goorma la qoray 2009 la qoray. buuggan goorma la qoray 1996 la qoray. buuggan goorma la qoray 2007 la qoray. Idan halkaana waxaa ka yani jaamacadaha qaarkood waxay xadidaan waqtiga daraasadaada aad qorayso buugaagta aad soo qaadanayso 5 sano ugu dambeysay marka qaar ku leeyihiin qaarkood waxay ugu leeyihiin 10 sano ugu dambeeyay. Idan marka ranjiga halkaana ka ogolaanaysa. Mesela waxaan leedahay aniga waxaan rabaa productivity maxaa laga yiri 2020 daraasadaha oo soo wada qabtay oo dhan 2020 u banaanaya fiiri marka 2020 noogu soo daray kan ugu dambeeyna waa 2020. Idan midkaan oo kala degsinaysa marka fiiri primary productivity. Idan productive ciwaan buugaagtana aad degsanaysid oo aad rabto inaad wax ka qaadato ama ka qortid ama ka soo qaadato macluumaad maxay yihiin waa in globally waayo halka maxaa raacsan marka la joogo Sweden. Idan buugga halkaan oo galaysa PDF-ka marka kuu soo furmo oo noo wareeganaya not now buugga marka saan kugu soo furmo okay buugga marka saan kugu soo furmo inuu ku qanciyo san ku qancin ma fiirinaysid hore ka degsanaysaa waayo waqti aad wax ku kala jeegarayna ma hayno waayo hadda wuxuu ka hadlayaa maxay primary productivity of management and Preston forest in Sweden. Idan halkaan meeshaan u jeedo waxa leedahay download leedahay. Computerka wuxuu ku weydiinayaa intee kugu download garaya ama kugu shubaa. Idan waxa soo dooranaysa marka folderkii hadda aan sameynayno oo ahaa hagaha cilmi hagaha ardayga 3 halkaaneti buugga hadda soo degsanayno ma in Africa ma in Soomaaliya in globally. Waxa leedahay in globally. buugaagta si aysan iskaga darsoomin ee iska qasmin. Hal meel hadda ku wada shubto macnaha waxa dhacaya buugaagtii oo dhan in hal meel isku wada furmaan. Kan waan ka laabanaynaa haddana kan labaad oo kala soo degsanaynaa. Aan isla fahmina rajaynaya. Not now waxa leenahay yes iso deji meesha toos ku keenad mujida marka kor fiiri hagaha ardayga 3 in globally mujida marka buugaagtaas oo dhan in globally hadda markaan baxno tusaale ahaan waxaan ka laabano kan aan ka laabto kan aan ka sii laabto kan aan ka sii laabto hagaha ardayga 3 markii aan galo fiiri saddex folder la soo maaha saddexda folder mesela in Africa waxba igu ma jiraan wax daraasad igu jiro malahan in Soomaaliya wax daraasad igu ma jiraan daraasadihii intee ku dhacay marka in globally labada buug hadda aan soo dejinayo waayo taariikhda halkaan ka fiiri November ama bishii 17 2020 hal saac 2 saac 8 daqiiqo dhiman halkaan oo jeedaa malena idan marka waxa si sameynaysa dana buugaagto dhan sana soo degsinaysa waxba ha fiirin soo wada degso yani midkaan ku anficin hadhow waa iska daleeday doonta waxa midka macluumaadka weesho kana wax kala ha fiirin ya waxa weeye kaliya yani PDF-ka Word kan oo PDF-ka akhrinayaan as default ma ka dhiganaysa ma u baahnaan ka dhigto okay adina ku weydiinaya ma aha waa wax aniga kaliya ay weydiinayo ma aha caqabad hadhow ku qabsanayso idan marka buug walba saas soo degsanaysa buug walba oo ku anfaco aad aragto mesela hadda Sweden galiya soo maaha hadwadan waxa gelinaysa Germany gelinaysa Germany markaad gelisay kadib badana waa kuwaana mujida buugta laga qoray Germany hadana ku soo wada qabanaya mesela kan oo kala mujida wuxuu ka hadlayaa wax loo yaqaano intangible capital and farm level productivity muxuu ka fiirinaa marka evidence from Germany waa gelaysa buug walba oo DV-gaaga oo ka hadlaya oo hadana maxay in global ah saas soo degsinaysa wajida meeshii oo keenay hadana hagaha ardayga in globally isoo koobiyay wali waxaan ka hadlaynaa productivity-gaaga ama DV-gaaga sida uu soo degsinayso waxaan sheegnay inaan chapter 1 qoreyno
chapter 1 waxaan ka qoraynaa qaybtiisa 9 qayb baa loo qaybiyaa qaybtii ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa background of the study waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood background of the study waxaa loo qaybiyaa 4 qaybood historical lamentation conceptual lamentation contextual lamentation iyo theoretical lamentation qaybta ugu horeysa waxa marka maxay historical lamentation ka saddex qayb baa loo qaybiyaa in globally nationally iyo waxa loo yaqaano in continent maanta waxaan qoraynaa marka in globally buugaaga markaas aan soo wada degsato haddana halkaanayte marka in globally marka ka dhamaato in Africa marka u soo jeesato halkan ay imaanaysaa waxa leedahay in South Africa yani wadanka doonto Africa soo qabsanaysa productivity markaas aan soo qabsadana waa kana marka South Africa inta waxaan ku qoran South Africa inta waxaan ku qoran South Africa marka yani sheeg sanadaha arabtan inta مثل waxaa rabaa 2017 oo kale waa kana marka waa ii soo qabay halkaan aan galayaa markaan galay kadib oo ii soo kacaya kadib markii uu ku soo kaco waxa sameynaysaa maxay download markaa sameyso computerka wuxuu ku weydiinayaa halkay kugu shubaa waxa leedahay maadaama in Africa aad baarayso waxa leedahay folderka in Africa igu shub okay يعني stable بس او maraysa waa kana in PDF aan soo daji okay marka kan muxuu ka hadli doonaa marka productivity in South Africa waxa leedahay marka download igu sameeyaa leedahay computerka wuxuu ku weydiinayaa ma in global ay kugu sameeyna ma yaa leedahay in global ma baahni waxa leedahay in Africa imaanaysa safe ku leedahay kadib waa laabanaysa haddana waxa soo raadinaysa buugaagta ee laga qoray in Africa wadanka qaarada laga qoray in Africa gidey baa leedahay waxa leedahay Sudan haddana muxuu ku soo qabtay Sudan inta 2017 sameeynaa 22 ka u baahanahay okay waa soo degsanaysaa kadib waxa leedahay ii soo deji kana mujid meesha daa wajida agriculture productivity in case of Sudan ku soo qabtay waa soo degsanaysaa computerka wuxuu ku weydiinayaa inta kugu save gareyn waxa leedahay ardayga in Africa igu save gareey idan marka waxaan folderadan waxaan u sameeynaa waxay tahay ama u sameeyo waxay tahay hadda fiiri in Africa waxa igu jirto daraasad walbo Africa laga qoray yani hadhow ma ku wareeraysa hada wixii soo dejiso hal meel isku wada shumaya hadhow ma kala garin kartay marka matana Africa matana waqti gaabsi ma suurtagal kuma noqonay marka waana taqaana waqtiga lagu siiyay waa 3 bilood ma suurtagal maaha inaad waxaas oo dhan yani ku kala shaandeyso xitaa hadhow waxa laga yaabaa inuu professorkaaga inuu ku weydiiyo buugaagta aad daraasada ka qortay keen ama soo dir say ugu dareysaa marka yani waa ku wareeraysaa isaan ugu wareeray marka folder gaar ah u sameeyay hadda kan wuxuu ka hadlay productivity of Sudan grass and sorghum Sudan grass waa magacyada xagga wadanka Sudan looga yaqaan waa degsanaysaa asigana download ku sameynaysaa marka ku sameeyay kadib waxa leedahay hagaha ardayga igu sub in Africa igu shub okay in Africa markaas u shubato waxa ku soo har marka in Soomaaliya asna waxa sameynaysaa productivity marka aan qorto waxa Soomaaliya bisa raacsinaysaa wajida Soomaaliya marka raacsi kadib marka wuxuu ku soo qabtay kan malahan kan lacag ugu baahanana waa marka la mara doona sida loo jibiyo waxyaabaha lacagta lagu waxeeyo kan oo kala soo degsanaa waayo Soomaaliya ka hadlaya asigana dowlad gareey meesha daawjid waxa qoray warsame 2022 ka la qoray wuxuu ka hadlaa climate change cimilada isbedelaya cross productivity in Soomaaliya waa dowlad gareysanaysa marka dowlad gareysato halkaan ku shubanaysa sidoo kale in Soomaaliya markii aad joogto waxa laga rabaa gap sometimes waxa sameyn kartaa ciwaankaaga raacsana gelin kartaa mesela waxa leedahay employee satisfaction and productivity toosa u gelinaysaa employee
marka qaar waxaa helaysaa ciwaanka ugu qoran ma helaysaaba kama job satisfaction productivity aa qoranaysaa laakiin inta laga qoray Spanish laga qoray waa marka global ay joogto Soomaaliya marka joogto waxa leedahay Soomaaliya halka ku dareysaa wujida marka the role of motivation on employee performance mo baahanid kaas laakiin employee performance sometimes oo baahanaysa marka IV ga ka hadlaysid employee motivation and background halkaan ka tag ilaa iyo productivity aad ka hesho waa soconaysa saas ay u raadinaysaa sometimes marka waa taa sababtan ku dhahayo background of the study marka qorayso ugu yaraan waxay kugu qaadanaysaa maxay 3 isbuuc 4 isbuuc 5 isbuuc ay kugu qaadanaysaa marka soo kale kaadid waxa leedahay halahan oo eega tira leedahay intaan eega titir وجد عملنا لما عمل كسانا أصوب هذا قشنينا صدي أرسنيسا إذا مركو حلقة روا الصومالي مركو جبت ما جاب على جاروا مركو هنا جاب قرطو جاب محلي هذا أصلا واسل إيجي دونا مركو نتقنو الصومالي جاب مركو نتقنو إن صومالي مركو نتقنو أصلا فيرينينا أوكي هذا مركو أنت سوحاكو قاب كله سود دجيري بوقت أو سود دكسنيست وإلا فهمت أماليها قاب كبوقت أو سود دجينيست in Soomaaliya marka sameeyay in Afrika ma ku dejinaysa la in Afrika ma dejinaysid waxa la halkan ay cili waxay geynaysaa in Soomaaliya ay gey halkan ay ugu shub okay hadda marka fiiri markaan folder keena tago mesela kana ka bax markaan folder keena tago halkan waxa igu jiro in Afrika inta waxa igu jiro in continent ama in global ya igu jiro halkan waxa igu jiro wax loo yaqaano in Soomaaliya ida marka hadda markaan qoraya marka background of the study hadda waa fududahay waayo daraasad walba global halkaas ka jirinaya in Africa halkaas ka jirinaysa in Soomaaliya halkaas ka jirinaysa marka hadda waxaan qoraynaa chapter 1 background of the study qaybta loo yaqaano ana si socona marka hadda waxaan sameynaynaa marka fiiri waxaan furanaynaa marka waxa loo yaqaan ii sheeg word aan furanaynaa computerkaaga imaanaysaa word cusub si loo furo kulli ma ku baraysaa aan filayo word cusub aa furanaysaa wordkan waxa ku qoranaysaa chapter 1 waxa ku qoranaysaa chapter 1 waa furanaysaa okay chapter 1 marka saan u soo furatid anaga waxaan rabnaa inaan qorno chapter 1 saana loo saasa u qoranaysaa chapter 1 control E la dhaxda geysanaysa kadib waxa leedahay chapter 1kii waxa loo yaqaanaa introduction waa horaan kugu sheegay chapterkan introduction loo yaqaanaa halkaana imaanaysa kadib waxa ku qoranaysaa introduction hadda ma u baahnid introduction markaan aan fiirnayna marka hadda waxaan qoranaa marka buugeena chapter 1 soo maaha chapter 1.1 aa leedahay waayo chapter 1ka qaybtiisa koowaad aan rabtaa inaan qorto chapter 1 qaybtana kood waxa loo yaqaanaa waxa background of the study okay background of the study waxaan sheegnay saddex qaybood loo qaybin afar qaybood loo qaybinayo qaybtiisa koowaad wuxuu saddexda qaybood ee loo qaybinayo marka hada buuga ku laabato hagaha cilmi baaraha wuxuu ku leeyahay koow waxa loo yaqaanaa historical dimension labaad waxa loo yaqaanaa theory conceptual dimension saddexaad waxa loo yaqaanaa contextual dimension iyo theoretical dimension okay marka anaga waxaan qoraynaa qaybtiisa koowaad historical dimension
historical dimension waxaan sheegnay waxay xooga saartaa ama ay sharaxaad ka bixisaa wax loo yaqaano DV-ga daraasadaada ay ka hadlayso. Annaga waxaan sheegnay marka ciwaanka aan isla soo qaadan doono ama isla qaadaan dhigi doono wuxuu ahaa employee satisfaction and productivity. muxuu ahaa employee satisfaction oo aad markaatina ka ahayd qaabkan u soo saarnay. ciwaankan ciwaana iska qaata ma aha, waa ciwaan aan ku soo qaabnay yani video ka horeeya ahaa ama xiisadii ka horeysay ahayd fahamka dulucda marka waxaan ku soo dhisnay ciwaankaasiti. ciwaankaas waa ciwaanka aan ku shaqayn doono. waxaan sheegnay marka historical dimensionku waxay xooga saaraysaa wax loo yaqaano DV-ga daraasadaada. ana DV-ga daraasadeena maxaa marka waa productivity. okay, marka waxaan dhahnaa marka productivity markaad ka hadlaysid waxaad uga hadlaysaa in globally, in continental, in nationally. waxaan sheegnay in globally yani waxaa loola jeedaa waa daraasadaha caalamka laga qoray marka laga tago Africa. in continent waa daraasadaha wadanka qaaradda Africa laga qoray qaaradda aad joogto markii laga reebo wadankaaga. in nationally waxaa waaye iyadana waa meesha gaabka aad uga hadlayso ee ah wadanka aad joogto iyo Soomaaliya. okay, hadda marka daraasada markaan qorayno waxaa kaloo markaa tigatahay haddana daraasadaha sida loo soo degsado. waxaan sheegnay folder furan ku dhahay. folderkaaga markaad furato kadib awa buugeeni folderkeeni hadda aan sameynay waa kana hagaha ardayga. waxaan sheegnay in Africa, in nationally, in Soomaaliya. saddexda markaa ka hadlayso waxaan ahanay sababta loo sameynay waxay tahay markii aad Google Scholar ka aad gasho ee aad buugaagta soo degsanaysid inayna buugaagtaada hal meel aan ku wada shubanaynin aad qandiyo u kala samaysato si buugaagtaada hadhow aad u kala garan karto inay la fahmaysaa rajeynaya. idan marka inta waxaa igu jiro fiiri buug walbo in globalia, halkaas waxaa igu jiro buug walbo in Africa ah, halkan waxaa igu jiro buug walbo in Soomaaliya. okay, maanta waxaan doonayaa marka kana iga xir. okay, iska xir ama iska daa. okay, waa iska xirnay. okay, marka waxaan marka cutub waxa soo furtaa Word soo furo. Wordka waxa ku qorataa chapter 1 ku qoro, sidoo kale introduction ku qoro. waayo buuga chapterkan magaciisa waxa la yiraahdaa introduction la yiraahdaa. sidoo kale farta ka dhig time romantic ka dhig, time new roman ka dhig. marka ka dhigto kadib fartana waa weyneyso adii 16 geyso. tan waxaad ka dhigataa idna sidoo kale time roman ka dhig fartana 12 ka dhig. okay, inta markaan joogno marka waxaan leenahay hadda waxaan ku bilaabaynaa marka maxay tahay in globally. buugeena ama waxa loo yaqaan productivity in globally maxaa laga yiri. halkaan ka baxaynaa waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa folderkeeni, waxaan galaynaa in globally. buugga ugu horeeyaan furaynaa. hadda buugga ugu horeeya markaad furto kadib waxaa sameynaysaa waxaa leedahay control V oo ah maxay vine hel weeyaan. fiiri waxaa leedahay control V waayo hadda saan u raaco buugga oo maanta dhan aan dhaho productivity aan raadinaya saan u eego yani suurtagal ima noqonayso waqtiga ima saamaxayo. hadda waa kan fiiri productivity horaan ka helay. productivity has become core element for organizational growth and survival. yani waxaan inta suurtagal ima aha. laakiin fiiri waxaan leeyahay buugga markii aan soo furo isla markii waxaan leeyahay control V aan leeyahay. control F markaan helo waxay ka dhigantaa vine. control F ka halkaas waxaan ku qoranayaa productivity. asaa ii raadinaya markaan. hadda fiiri ereyga productivity buuggan waxaa ku jira 51 erey ku jiro. 51gaas ereyaan ka rabaa markaan. buuggan halkee baa laga qoray? buuggan waxaa laga qoray wadanka laga qoray waa kana Nigeria. idan anaga buug Nigeria ma u baahanahay? uma baahnin. waayo Nigeria maxaa waaye in Africa weeyaan. buuggan waan ka laabanaynaa. maagan sababtoo meeshaan ku yimid in global yaan joognaa. buuggan noo qaad control X de in Africa noo dhaxgay. halkaas looga baahan yahay. okay, in global igu soo celi buugga labaad jeegsi klik markaas soo buuggu ku soo furmiya. buuggan halkee baa laga qoray? yani waxa fiican inaad iska ilaalisaa
hadda buuggan waxaa laga qoray California laga qoray waa wadanka Mareykanka saa rajaynayo California Review Management balaan fiirin laga yaabo magacaas taa inuu yahay jaraa'id inay leedahay laga yaabo ama journal inuu leeyahay buugga wadanka laga qoray May University of halkan maxaa ugu jeedaa University of California University of California halkee ku taala marka aldiiste waxay ku taalaa dee wadanka Mareykanka soo maaha إذا مركب حقيقة بوجا إن لقى قرية ودن كمريكنك that's why مركب بوجا ونون نقون كرام هاي إن globally وحاليا مركب control F على ده هي control V مع control V مليه كرنوع هذا وحاليا ده هي حال كم حيقول قرطة productivity productivity بوجا وحكوجة تطبيقات نيو سجال إري انتر على ده مركب السيجا كورة دينا مركب فيدي يعني أنا waxaa adeegsanayaa kaliya badhanka enter adeegsan ama waxaa adeegsan kartaa next iyo preview next maxaa waaye hore u soco preview maxaa waaye dib u soco wajida labadan eray fiil hadirtan productivity marna kan oo imaana marna kaas oo imaanaya hada next dadho kan oo imaanaya preview dadana gadaal ku laabanaya idan marka next aan dhaha next yani ani saasan ku socnaa ilaa aan ka helo qeexitaan productivity laga siinayo sometimes na waad adeegsan kartaa waxa loo yaqaan maxay productivity is aad ku sii qoran kartaa uma jeedo okay buuga markuu iga diiday idan marka buugana ma anfacaya marka maadaama uusan anficinin maxaa sameeynaa marka inaan iska xirno meeshuu joogna aan u tagno asignan aan delete ana marka delete taabanaysa buugu ka baxaya okay sababta u daleeda maxay tahay waayo hadda ka tago ima anfacayo waayo meeshii kugu aalaya marka buug walbo aan ku anficin hadayna waxaan ku sheegay marka buugta soo dagsanaysid iska soo dagso waxba ha fiirin inuu ku anfacayo inuu ku anficin hadhow arki doontaa buugga labaad hadda daf ay ku qoran tahay jag EC hadda kan wuxuu ka hadlayaa total factor productivity waxa leeyahay marka productivity calaamay control F ide control V kadib dheh control V wuu iga diiday halkaas waxaan ku qoranayaa productivity okay halka marka qeexitaan ka haya qeexitaanka hele isla markii wuxuu noqday marka total factor productivity is a portion of output not explained by the amount input yes kanoo kale wuna anfacaya marka sababtu wuxuu yidhi total factor productivity haddaad maqasho is a portion waa qayb kamid of output waxa aad soo saartay taasi maxay tahay not explained by the amount taasoo aan cadeynin inputka kaa gala markii aad soo saaraysa tusaale ahaan waxaan aan soo saaratay مثلا total factor productivity waxaa lagu qeexaa ama lagu sheegaa waa portion kamid outputka aad soo saartay waayo laakiin outputkaaniti not explained ma sharxaya ama ma cadeynayo amountiga marka hore kaa galay idan waan soo qaadanayna marka control Z adeysay halkana imaanaysa waxa ku qoranaysa hoos iska imaanaysa control V hadhow waan sharxi doonaa ayaan sharxi doonaa wali waxaan oo dhimay citation aan oo soo dhiman wali fahmaysa soo maaha sidoo kale waad bixaysaa waxa tagaysaa meesha loo yaqaan maxay buugga ku laabanaysa buug marka ku laabada dana waa kana total factor productivity is a portion of output tan hore aan soo qaadan sharaxaad weeyaan okay next yaan dhaha sharaxaad kale raadinaya sharaxaad kale kama hayo buuggan maadaama buugga sharaxaad kale aan ka waayo ma ka tagayaa la ma ka tagay waxaan sameynayaa marka buuggan waxaan isku dayayaa inaan ka qoro maxaa loo yaqaanaa yani citation aan ka qoro okay kana u tagayaa marka citation ama halkan waa ka qori kartaa oo ku qori kartaa intana waa ku qori kartaa citation kale kan waxaan rabaa gadaal inaan ka siiyo citation marka qoraysa marka citation waxa loola jeedaa inaad iska ilaaliso yani wax loo yaqaano ii sheeg boole inaad iska ilaaliso bibliography loo yaqaano marka la joogo ii sheeg maadadan research methodology inaad iska ilaaliso boole maxaa loola jeedaa marka warkan aad soo qaadatay adiga ma lihid qofkii lahaa waa inaad u tiirisaa idan marka waxaad tagaysaa reference aad tagaysaa reference markuu kuu soo kaco waxaa leedahay kadib insert citation aad leedahay add new resource aad leedahay add new resource markuu ku dhaw wuxuu kuu soo saaraa boxka markuu kuu soo saaro waxaa ku laabanaysaa buuggaaga ama journalkaaga yaraa ku laabanaysaa buug miya mise journal waa soo kala cadaynaysaa
section book miya waa soo kala cadaynaysaa. Inaga hadda keena maxaa marka waa journal weeyaan. See ku ogaatay halkan see u jeedo waa 5 page weeyaan. sidoo kale maxay malahan maxay yani book title malahan waa section book malaha waayo halkan saa u jeedo number 2 ka bilaabanaya. book section haduu yahay meeshan oo kale wuxuu ka bilaabanaya 29 27 64 book bartamihiisu ka dhex bilaabanaya. idan marka waxa leenahay bookgeena hadda muxuu yahay marka waa journal. maadaama journal uu yahay waxaan sameynaynaa inaan qaab journal ahaan aan ugu sameyno citation ka ugu sameyno. okay marka maxaan sameynaa marka bookgeena aan ku laabanaynaa waxa leenahay marka in reference ya leenahay insert citation add new resource ya leenahay. buugga maadaama journal uu yahay macluumaadkan laga rabaa. authorka buuggan qoray, buugga title-kiisa, journal name-kiisa, yearka sanadka buugga la qoray iyo pageskiisa laga rabaa. okay waxa leenahay marka authorka buugga qoray magaciis. authorka buugga qoray buuggan markaan ku laabano waxa leenahay magaciis waxa la yiraahdaa Diego Comin. control C aan soo leedahay halkaan ana keenaysa control V ku leenahay. buugga title-kiisa magaciis buugga waxa leenahay waxa loo yaqaanaa total factor productivity ka hadlaya. control C aan leenahay waa qaadanaynaa halkaan aan geysinaysa buugga magaciisa. okay journal name magaciis journalka magaciis journalkaaga magaciis kadib waxa kala sameynaysa hadana journal name ka soo waxaynasanaysaa ku baaskaleynaysaa sanadka la qoray wuxuu noqonayaa 2006 soo qaadanaysaa halkan ay keenaysaa baasta ku leedahay pageska meeqa waa marka pageskan waxa weeyaan 5 page way marka 5 pages leedahay 5 pages. okay hadda marka okay tiraada marka fiir meeshan Comin iyo 2006 idan marka kanba waxa loo yaqaanaa marka citation. wajida Soomaa kaas hadda uu noo diyaarsan yahay. okay sidoo kale waa baxeena buugga labaadaan furanaynaa. buuggeena kala noo fur kan naga xir waxa leenahay productivity iyo calaamay iyo qaad control V ide control V igude control F control V 62 mar lagu sheegay. idan maadaama sharaxaad aad marka isla raacsinaysa the best way improve shared employee managers kana soo qaadanaysa hadana sharaxaadaasiti level work input missions of statements showing etc inta waa soo qaadanaysa way waa sharaxaad yar oo qurux badan weeyaan. way wuxuu yiri the best way habka ugu wanaagsan ee lagu cadeyn karo ama lagu muujin karo productivity is by striving waa iyadoo loo sheergareynaya hadaafta laga leeyahay shaqaalaha iyo managerska in la wadaaga weeyaan. by allowing iyadoo loo ogolaanayo worker shaqaalaha inputkii into the developing division statements. yani macnaha guud waxay tahay wayga ugu wanaagsan ee productivity lagu muujin karo ama lagu gaari karo waxay tahay marka in ahdaafta yani wax laga siiyo shaqaalaha iyo managerada wax laga siiyo. idan marka waa soo qaadanay intaanba waa soo qaadanay halkaan noo keenaysa meeshana noo keenaysa waxa la control V. yani waxa sababta isku dhex shaandheynaa waxay tahay hadhow waxa u kala kormarinaysa hadba midba midku ka qurux badan yahay ayaa u kala kormarinaysa. sidoo kale waad bixaysaa buugga ku laabanaysaa next ya leedahay. haddana waa ka muujidaa productivity hadaad maqasho is a performance performance measure waa waxqabadka lagu cabiro encompassing both efficiency and effectivity. efficiency waxa loo yaqaanaa markii waxaneeti aad isticmaasho resource yar meesha doontana aad gaarto. effectivity waxa loo yaqaanaa wixii laga rabay inaad geyso goobtii lagaaga baahnaa iyo waqtiga lagaaga baahnaa iyo sidii lagaaga baahnayba. sidoo kale waxay hadana sport waa muhiim therefore said inay ogaato who productive worker are. productivity is a performance measure halkan aan soo qaadanay. sidoo kale wuxuu yiri
intaanoo kale ina anficaysaa. Therefore sidaa daraadeed haddana employee shaqaaluhu are more willing waxay in badan rajeynayaan tugada inay helaan involving and decision making goal setting or problem solving activity kaasoo si isku xiga natiijada ugu soo baxay high employee performance. noo soo qaad citationkiis kan citation saawataba. Okay, halkaan oo dhig sidoo kale aanay performance-ga inta markaan soo qaadana kadib haddana waxaan sameynaa buugeenan ku laabanayna maanta dhan saas u shaqeynayna maanta idil saas u shaqeynayna fahmaysa. haddana waxaa leenahay next yaa leenahay sharaxaad kale mana siin kartaa mayuna yidhi maadaama laba weji way noo furan tahay. horta kan ugu dambeeya asaas citation wato oo waa kan aad meeshan aad ugu jeedid maxay Helen Scullum and Woodman nin la qoro 1998 min citationkaas waa ku ekeysan kartaa. haddii aad doontana labadan eray way kala qurux badan yihiin waayo kanna macluumaad guud uu bixinaya kanna sharaxaad uu bixinaya. ida marka kanaan kormarinayna marka waxaa leenahay control x leenahay boos u banee kornagee control v ku dheh maadaama hal bug ay iskala imaadeen isku qabo marka isku qabatay kadib kan citation u sameeyo. saadu jeeda alignment ma aha buuggeena ma sinno oo saan marka ka fiirisid waayo waxaa laga rabaa buugga saan oo kale inuu sameyn yahay farta weli maan bedelin waxaasoo dhan waan usoo laaban doonaa. hadda maxaan sameynaynaa inaan u sameyno citation see loo sameeya haddana waa marka buuggeenaan ku laabanaynaa waxaa leenahay horta waxaan aan qorayna ma buug ba mise waa novel. kan waa buug see ku ogaatay waa marka kor fiiri marka macluumaadka hore ku dhameystiriyay ciwaankii wixii dhammaan marka halkaan fiiri pageska maxaa waaye 54 ilaa 68 ida maxaa ogaanaysaa waa section book ka mid ah weeyaan. buugii weli wuu sii socdaa laakiin buug pageka 56 ilaa pageka 68 halkaas waxay ku sheegaysaa buuggan inuu yahay qayb ka mid ah buug dhameystirnaa marka waa section book. ida marka waxaan tegaynaa citationkeena waxaa leenahay reference halkan ku qoranta mujida insert citation aja ku siinaysaa kii hore mujida كو يعني ونو سيف جري أو total effective productivity أو كان هذا وعلينا add new resource علينا add new resource مركز هنو هالكا وحن كدورينا book section موجودة book وكوريا book section أكو حيوان book section مركز قرنا كده بنت وحنا قال ربا author أنا قال ربا كو لو وحنا قال title أنا قال ربا وحنا قال ربا book author أنا قال ربا وحنا قال ربا هذا محاي book title كل بعليننا سندكي بيجكي مقالدي سي ببليش قفكي يعني شركتي إعلاميسي أما باهيسي أما هو حلو يقان الشركة دي محي يعني دابع عضي يس ويكن بي أوكي مركا هل كانوا كل لابانينا وحالينا هاي بوغان يا قري بوغان وحان قري كمال خالد باتي ينك لو يقانو تابر مسعود خريشي labada nin noo koobiyay waayo waa labada qoraa ee buugteena qoray weeyaan buugaan qoray labadooda halkaas ku koobiyayna anagoo ka tirtireyno calaamadaha city marka ku qornay kadib mar labaadana buug author-ka halkaan ku qorayna title-keena magaciisa marka title-keena buug title-kiisa waa kana marka waa impact of employee participation on job satisfaction employee commitment to employee buug wuxuu ka hadlayaa commitmentiga ama waxa loo yaqaan participationka in laga qayb geliyo shaqaalaha wax la soo saarayo. علينا title kaas igili hadana sidoo kale buug title-ki igili kidib yeerka sanadkee weeyaan sanadka buugga la qoray waa 2007 iso calaamay halkaan ii keen waxa leenahay 2000 buuggeeni waa sanadka 2007 page meeqa waaye waa 58 ilaa iyo 64 mujida intee ka keenay waxa ka keenay meesha dayaan isla arkaynay oo ahayd halkaan city ama 15 page gashan kartaa waxa la 15 page ama 54 ilaa 68 leedahay pageskaga. Okay intaas markaa qorta kadib waxa qoraysaa hadana macluumaadka labaad muxuu ahaa magaaladii qoraysaa magaaladii asaa ka soo dhex raadinaysaa waxa leedahay magaalo inama sheegayo hoosna aadba laga yaabo in laga helo meelaha magaalada ka dhex raadinaysaa
على كمال قاضي business administration department kasoo baxay ninkan wuxuu kasoo baxay Jinnah University Islamabad waa Pakistan weeyaan labadooda fiiriya Kamal Khalid Bati waa business administration department Mahmoud Ali Jan University kasoo baxay Islamabad kasoo baxay Thabitna wuxuu kasoo baxay Ali Jan isla jaamacadda Islamabad marka jaamacadda Islamabad ay ku taala marka halkaas maxaan ka helnay city-ga ka helnay ama magaaladii abaxayna halkan aan tagayna city ku qoranaysa sidoo kale publisher leedahay publisher marka dhahdo kadib publisher ka yaa waaye publisher ka waxa leedahay buugga ku laabanaysa buugga publisher ka raadinaysa marka kan publisher noomashee maadaama publisher aan weynay waa ka tagi karnaa ma mushkila laakiin inaan kasii dhex raadaysaa way ku haboon tahay waayo yani waqti aan kusii raadina ma helayno waayo time baa nagu sii socdo Badi iyo Quraysh labadooda magac waaye mujida marka meel aan wax ka sii raadina ma lahan laakiin adiga inaad raadayso way ku haboon tahay magac adigoo ka raadinaya qaybahan ugu dambeeya hadaan marka isla fiirinay ma ugu jeedno wax loo yaqaan maxay meeshan waxa ku jira kaliya magacooda jaamacadda yani departmentiyada ka soo jeedaan ama facultiyadooda jaamacadda ay ka soo baxeen wadanka ay ku taalo magaalada ay ku taalo emailkooda bisle ku qoran that's why marka waxa leenahay okay iska leenaanaga ida marka Qurayshi 2017 halahaanit waa calaamaysanayna waxa leenahay maxay home ili magaca farta waxa leedahay time roman iga dhig fartana 12 cabirkeeda iga dhig okay labadooda marka isku base garay ida maxaa jeeda marka wali alignment ma aha alignment si u noqoto xalada halkaan mujida inta ay background ku qoranta imaanaysa farta waa isla sameeysaa hadda soo qurux badan marka way qurux badan tahay sidoo kale waxa naga dhiman space ka inaad ka dhigto 1.5 buugtaas lagu ogol yahay inaad ka dhigto jaamacadaha qaarna 2 ay ku leeyihiin laakiin hadba jaamacadaada iyo sida ay ogosha weeyaan okay marka in global waa qorna soo maaha hadda waxaan qoraynaa in Africa in Africa qorayna in Africa markaan qorayna waxa leenahay marka buugan ku laabanay waxaan ku laaban folderka buuga horta ku laabanayna kana iska soo xireynaa ka marka iska soo xirnaa kadib waxa leenahay buugan noogu laabo in Africa igee in Africa galeyna in Africa kan ugu horeeya ee galbo kan ugu horeeya marka gal waxaan leeyahay productivity away kan wama ka hadlay productivity waa kana productivity saana oo calaamaysanaysa waa calaameystay control C aan dhahay control F aan dhahay oo vine ah control V aan ku dhahay wajida waxaan dhahnay kaliya waxay tahay kanaan soo calaameystay markaan soo calaameystay control C aan dhahay si aan u koobiyeeyo kadib waxaan dhahay si aan halkan ugu raadiyo control F aan leeyahay oo vine ah kadib waxaan leeyahay control V kan marka wuxuu productivity buuga 40 eraya ku jirto 40 eray marka uu ku wareeraysaa waxa tiraahdaa productivity is de ilaa waxa doonaysa maxay sharaxada doonaysa idan productivity is uu ka diiday sidiisa uu waxay marka sidiisa ugu raadinaysaa adoo next dhahay raadinaysaa alooda buugan wax sharaxada ugu weyn ka sibixma laakiin fiidi macluumaad uu nasiisiyo oo ah meeshaan fiidi employee satisfaction is a measure fiiriya wuxuu yiri employee satisfaction is a measure of how happy satisfied ama sida lagu cabiro kaliya inuu faraxsan yahay shaqaalaha sidoo kale inuu ku faraxsan yahay shaqadiisa inuu ku faraxsan yahay work environment-giisa meesha uu ka shaqeynayo organization-ka should institute waa inuu hagaa culture-ka which encourage kaasoo dhiirigelinaya an enforcing an riixaya ama yani u sababeynaya shaqaalaha inuu ku qanco sidoo kale employee waa loyal weeyaan wuxuu loyal ku yahay to their organization ururkiisa sidoo kale productivity-giisa yani sharaxaad wuxuu kaasi siinayaa hadhow markaad IV-giina markaan ka hadli doono wuxuuna siinayaa maxay halkana ugu imaan doonaa laakiin anaga hadafkeena wuxuu yahay inaan raadino waxa loo yaqaan productivity idan buugan wax macluumaad badan ma siinayo waa ka tageynaa kan labaadaan dooranaynaa
in Africana saas ay u qoraysaa. Waxaa leedahay tusaale ahaan haddana productivity calaamaysanaysaa, control F aa leedahay, kadib control V aa ku leedahay, waa raadinaysaa. Si aa kan ugu raadaysna waxaa leedahay isaa leedahay. waxaa sababta u boobsiinaya waa taqaanaa, yani wixii waa isla soo wada fahamnay. waxaan rabaa kaliya inaan isla kanada wuxuu yidhi productivity is a common divided ratio between maxay output value and value of input. in other word haddaan ku sheegno wuxuu yidhi intaan oo faa'iidada dhan waa soo qaadanaysaa. mujida intaan oo dhan waa soo qaadanaysaa. hadda kan citation asaale citationkiisa nooga soo qaat, inkastoo ay fiican tahay in anaga citation u samaysano. waxaa leedahay control Z leedahay, waxaa imaanaysaa buuggaaga. halkan inta waxaan kasoo hilmaamnay inaan ku qorno maxay in globally afaan soo maaha. inta markaa joogto in Africa ku qoraysaa in Africa, laakiin si aan hadhow u kala qurxino waxaan leenahay internet iyo calaamay. farta waxaa iga soo dhigtaa leeyahay Timer Roman waa ii yahay 12 iga soo dhig, alignment igu sameey, space-kan waxaa iga dhigtaa 1.5. okay, si ugu qurux badnaato halkan waa ka jaraysaa, halkaas u geynaysaa, kan waa ka jaraysaa, halkan u geynaynaa. waa fahantaa u malaynaa, kan waa jira intana u geynaynaa. okay, hadda marka waa laba mid waa samayn karnaa. marka kan citation asaa wato, haddaan doonno citation sida hadda u samaynayno kala soo samaynayna. maadaama citation uu wato citationkiisa waa ku dhaafayna. idan marka citationka uu wato maxay tahay? marka citationka uu wato waxaa waaye qofkan buugga qoray meeshuu ka soo qaatay weeyaan. adna maxaa samayn kartaa? isla qofkii buuggan qoraa citation sii kartaa. marka citationka markaa ka tirtirto, fiiri, citationka markaa ka tirtirto buuggan leenoo celi. citationka markaa ka tirtirto oo buuggan qofka qoro citationkiisa aa siiso, waxaan waa silsilad iiga isla raadsan doono. idan saas awgeeda u samaynaysaa. marka maadaama citation wato waan ku dhaafaynaa citationkiisa. in Africa waxaan kasoo qaadanaynaa qeexitaan labaad aan kasoo qaadanaynaa. qeexitaan labaad ayaan kasoo qaadanaynaa. kii hore waan qaadanay, kan haddana qaadanayna. waxaa leenahay productivity is useful as related measurement of actual. intaan oo dhan waa soo qaadanaysaa maadaama ay yihiin hal word ay yihiin. control C yaa leedahay, halkaan imaanaysaa, hoos waxaa ku qoranaysaa, waa baxaysaa, haddana waa ku laabanaysaa buuggaaga. markaa ku laabatay kadib haddana waxaa leedahay halkaan fiiri, ninkan loo yaqaana Owen Smith, Helen and Lockheed saasi 6dii sababtaasay u sheegeen. adawaad muhiim ma laha. waxaa leedahay marka this definition yes, kan naftigiisa noo soo qaat. Owen iyo Devanid waxay ku qeexeen hedging effective interaction of the employee with their organization climate. other words of the productivity is a concept waa macluumaad that depends on taasoo ku xidhan hadba sidii yani shaqaalaha loo qanciyo. it does not have malahana layidhi is a singular definition. yani intaan oo dhan noo soo wada qaat. sidoo kale adina this definition, yani intaan oo dhan waxay sheegaysaa kaliya maxay productivity iyo wixii la yidhaahdo. noo soo qaat, halkaa noo keen, noogu koobiyey, buuggana nagu celi. haddana macluumaad walbo aad u baahan tahay oo buuggaasi saas soo raranaysaa. mujeedaan productivity is a negativity muhiim ma aha. okay, haddana waa sii soconaysaa. yani maantuna saasa u raadinaysaa, wuu naga diiday. okay, marka fiiri, kor noogu celi buuggan. buug miya mise section buug waaye? waa section buug waaye. waxaanana marka laba weyb way ku furan tahay. hadda fiiri, intaana isku calaameysanaynaa oo quruxsanayaa. waxaa leeyahay Timer Roman iga dhig, farta waxaa iga dhigtaa 12 iga dhig, alignment igu sameey, space 1.5 iga dhig. sidii u qurux badnaanta ma aragtay? iga isku xirxirayaa, yani spaceda siita isku xirxirayaa,
kadib waxaa leeyahay markaas aan isku xirxiro tii kalena aawday waatanaa isku xir okay isku xir okay isku xir okay kana xagga iige laba way way noo furan tahay markada laba way way noo furan tahay labada way noo furan waxay tahay inaan citationkana oo hadda wato inaan ku dhaafno oo dhowr buug laga soo kala qaaday laakiin waxaa laga yaabaa in Jaafiir hadda 1989kii 1999kii sidoo kale danna waxaa la qoray 1966dii 2007dii waxaa dareemaysaa in uu jiro ay sheegayaan gaab weyn uu jira dareemaysaa sanadahaasiti lagana yaabo jaamacadda hadda aad dhigato inay ku dhahday shantii buug ugu dambeysay noo soo qaado kaama aqbalaysa marka inaad qorto buugaag citationadooda wato 1989kii waa laga diidayaa si aan lagaaga diidin marka warkaana uu ku qurux badan yahay saa u jeedid idan marka waxaa sameynaysaa maxay buugaaga ku laabanaysaa sanadka la qoro buugaaga meeqa waa fiiri buugaagana waxaa la qoray oo 2000 kana 2017 la soo cilaamiyay idan 2017 shanta sano ugu dambeysay ku jira Soomaha shanta sano ugu dambeysay hadda 2022 lagu jira 20 19 18 17 waaye jaamacadda waxay ogoshahay 2015 ka soo bilaaw ilaa 2022 buugagta la qoray maadaama buugaanay hadda u jeedid la qoray 2017 waxa sameyn kartaa inaad ka dhigto citationka isla buugaanaytii idan waxa sameeysaa marka waxa ka tirtiraysaa citationada aad tirtiraysaa waa cunaysaa marka cunto kadib badana kana cunaysaa ilaa divinada yani buuga meelo ka bilaaban kara laga rabaa waa cunaysaa laakiin waxa u dhaxaysiinaysaa point u dhaxaysiinaysaa marka waxa leedahay it's divinet warka marka jarta kadibna maxay inaan qurxisaa laga rabaa okay kan oo kale waa jaraysaa maadaama kan uusan jirin oo citation sumeerabno joogsi u dhaxaysiinaysaa waxa leedahay marka hoos imaaw sidoo kale kan cuna leedaasna laakiin point u dhaxaysiin ida marka maadaama warkaan oo isku tixaan yahay deertaaneeti kan hadda waxa sameeyay marka citation cusub oo sameynaysa adigoo buugaaga tixraac ugu dhigayo waxa leedahay marka reference aad tageena citation aan tageena citation marka tagna kadib labadii hore waa noo calaamay mujeedaa add new resource leedahay add inta marka rahanay buugana maxaa wata waa section book inuu yaasiyo ku ogaatay section book inuu waxaan ku ogaaday halkaan fiiri buuggeena pageskiisa meeqa waay waa 61 ilaa 70 sidoo kale fiiri haddii aad hoos u socoto pagekan dhamaadkiisa maxaa arkaysaa 61 ka bilowdaaba section book sababtaas loo leeyahay marka section book maadaama uu yahay waxaan leenahay marka hadhow markii aan citation ka qorayno waxaan leenahay reference taga insert citation leeyahay add new resource leeyahay inta dooranaya waxaan leeyahay book section waa leeyahay book section marka waxa laga rabaa kow author-ka qoray magaciisa author-ka qoray magaciisa waxaan leenahay magaciisa waa kuwaana marka saddexda magac waay saddexda magac ii soo qaat halkan ii keen hal magac ii soo qaaday sidoo kale waan ku laabanayaa magac labaadaan qaadanayaa magac labaad markaan qaato comma u dhaxaysiinayaa waa qorayaa comma leeyahay an iyo waxaa buugan isla qoray nin kale oo loo yaqaan magaciisa Okagu magacyada Afrikaanka lama akhrin karo yani wadamada Afrika inta badan magacooda waxa waayaan marka laga reebo wadamada Islaamka magacyadooda xogaa way yara adag yihiin sidoo kale waxa leedahay maxana la weydiiyay horta hore waxana title book-kana la weydiiyay title book waxa leedahay title book waa kana intana soo qaadanaysa hadii uu naga yeelo si aan waqti u fuudeysano oo naga diiday qayb kamid ah noo soo qaaday waa laabanaysaa waxa leedahay waxa leedahay intana noo soo qaadaysaa buugan waxa laga qoray Nigeria laga qoray Nigeria telecommunication industry laga qoray effect on inta noo soo qaat effect on naga goy waayo meesha noogu qoran tahay
waa arkaysaa umalaya dhibka laga maraayo. Marka buugga daraasadda aad qorayso waxaa lagaga baahan yahay sabar. Sidoo kale buugga hagaha cilmi baaraha haddaa haysato jabtarkiisa 3aad oo kale markaa akhrisid jabtarkiisa 2aad markaa akhrisid waxaa lagaa rabaa dulqaad fara badan lagaa rabaa. Sida hadda aan u rafaaday baa ujeedaa muddo 1 saacaan kor fadhiya adigna laga yaabay waqti badan inay kugu qaadato. Book authorka oo kale marka lagaa rabo kana ku soo celinaysaa. Sidoo kale haddana waayo buuggan 2 ciwaan ma lahan ciwaanka 2aad haddana kaasaa siinaysaa. Sanadka hore qore 2017 oo ahaa halkee ka keenay aan isla soo fiirino itus iyo itaabsi dhaheen Soomaalida. Wuxuu yiri 2000 January waa kala muujida buuggan wuxuu soo baxay 2016 waxaa la approve gareeyay November 2016 January na waa la daawacay. Intaas sixitaan iyo soo bixitaan ku jira kaliya. Sidoo kale 2017 waaye pageskiisa meeqa waaye pageskiisa waxaa weeyaan 61 ilaa 70 weeyaan. Ii soo qabo intaas ii qor city magaaladiisa magaaladee waaye magaalada buugga laga qoray waxaa leenahay telecommunication history hoos u soco Nigeria maadaama laga qoray caasimadda le inta badan siinina magacyadooda inta ka qoranaysa marka department management ka soo jeedaa. Sidoo kale faculty of business administration weeyaan Nigeria laga qoray. Campuska wuxuu ku yaalaa waxaa loo yaqaanaa Onugu campus loo yaqaanaa iyo waddanka numberkiisa bisle meesha ku qoran maadaama marka magacuusa lahayn Nigeria waxaa leenahay marka Abuja la iska dhaheena inta badan saas ay ogtaa soo maaha. Abuja iska dhe Abuja waa Nigeria magaalo madaxdeeda weeyaan yaa publish gariyay kana daawa taa soo weyneynay laakiin adiga inaad raadisaan kugu dhiirigelinayaa. qof asna meesha netii publish gariyay ma lahan. That's why marka waa ka tagi kartaa waxaa dhigi kartaa maxay ajida marka citationka marka da citation jaamacadda ay ka qaadan kartaa waa laakiin 3 citation oo aan tirtireynay ma aha mid la qaadan karo ma ahayn. Hadda waxaan u dhahay marka in Soomaaliya caleenahay in Soomaaliya markaan joogno marka gaabis aan naga rabaanay inta badan waxaa leenahay marka fiiriye koorto waxaan soo qaadanaa qeexitaanka ka kooban soo qaadanaynaa halkaan imaanaynaa waxaa leenahay in Soomaaliya markaa soo dhex gasho waxaa leedahay sorry kan ugu horeeyo inaan galnaa horta marka ugu horeeyo. Hadda buuggan Boosaaso laga qoray isla asliyan ku bilaabeena. Buuggan wuxuu ka hadlayaa labor skills and productivity ka hadlaya in small industries. Case studies waxaa loo yaqaanaa for Elio Tango Company weeyaan. Elio Tango Company laga yaabo in Boosaaso ku yaala. Buuggan waxaa laga qoray Boosaaso Puntland Soomaaliya laga qoray. Yaa qoray researcherka magaciisa meesha noogu qoran jaamacadda laga qoray waa East Africa University weeyaan. Degreegiisa waa economic weeyaan. Waa kana marka Maxamed Saalax qoray. Maxamed Saalax baa qoray. Okay marka ana waxaan rabaa 2015 qoray. Maxamed Saalax marka meeshan declarationkiisa waxa ku soo bandhigay ana waxa la control v control waxa la marka productivity ka dhaxlaatanaya productivity sharaxaadan ka rabaa productivity is iracsi akana mugdi markay warkaan soo qaadan waxa la productivity is a measure of how efficiency farm or the economic usage input as a labor or on capital to produce good or service. Janji in productivity ku imaada are not the same lamid ma aha janji ku imaada level of productivity. An increased productivity ku imaada kan min waxay ka la macna tahay that more goods or services have been produced in la soo saar within same amount of capital labor or the same amount of the good of service. Haddana wuxuu ku yiri labadaas haddana waxay leeyahay produced less capital labor. Taas waxaa sii dheer haddana the usual measurement of productivity is a growth productivity weeyaan. That is taas wixii caddaynaysa the extent jiritaanka of this internet waa sharaxaada walaalkeen Maxamed Saalax ka bixiyay
khayr allaha ka siiyo wax badan noo fududeeyey. In Soomaaliya markaad joogto waxaa leedahay marka intaasoo dhan sharaxaadaas waa soo wada qaadanaysaa hal mar marka fiir citation aad samaynaysaa. Waxaa leedahay buuggan horta waa buug dhammaystiran. Buug dhammaystiran inuu yahay sii ku ogaanaysaa. Wuxuu leeyahay fiir declaration uu leeyahay, student declaration uu leeyahay, approval uu leeyahay. Waxaan oo dhan sababtu waxay caddaynayaan maxay inuu Maxamed Saalax buuggan buug dhammaystiran uu yahay. Section book ma aha. Maadaama buug dhammaystiran uu yahay citation aan siinaynaa. Maadaama aan rabin walaalkeena wax ka qiyaameyno citation sababta loogu talagalna waxay tahay ku yiri inaad iska ilaaliso booli inaad iska ilaaliso. Waxaa leedahay interest reference yaa leedahay, insert yaa leedahay, kadib waxaa leedahay add new resource yaa leedahay. Walaalkeena waxaan leenahay buug dhammaystiran uu waaye. Buug dhammaystiran maadaama uu yahay ii soo calaamay buugga ciwaankiisa. Buugga ciwaankiisa waa intaas yeeti. Waxaa leeyahay igu sameey buugga title-kiisa. Okay, industry intaas noo soo calaameeyay. Kadib waxaa leenahay noogu celi. Okay, labor-ka inta noogi hadana. Inta markaa geysay kadib hadana noo calaameey. Okay, hadana buugga iigii intaan kale ii soo qaad hadana. Okay, buugga markaa hadda ciwaankiisa waa noo dhammaystiran yahay. Waxaa noo dhigma author-kiisa yaa qoray. Waxaa qoray aan leenahay nin wiil arday loo yaqaano ama ustaad loo yaqaano Maxamed Saalax. Maxamed Saalax waa calaameynsanaynaa. Waxaan geysanaynaa halkaas aan geysanaynaa. Halkaas aan geysanaynaa. Waxaa leenahay yeerka uu qoray waa goorma uu qoray buugganeeti. Buugganeeti wuxuu qoray 2015 uu qoray. 2015 uu qoray. 2015 uu qoray. Magaalada ku qoranna waa iska caddahay waa Boosaaso. Okay, yaa publish gareyntii buugganeeti yaa daabacay. Kolley waa qof daabacday nooma soo raacin. That's why maadaama aysan lahayn waxaan iska leenahay. Okay, iska leenahay. Idan Maxamed Saalax hadda hal sharaxaad way nagu filan tahay. Haddaad doonto dhowr sharaxaad waa ka baxsan kartaa. Laakiin maadaama anaga aan waqti badan haynin waxaan leenahay intaasaa ku ekaysanayna. Hadda waxaan nagala doonayaa gaab marka. Gaab maxaa la yiraahdaa marka? Gaab waxaa la yiraahdaa walaalkay ama walaashay. Gaab waxaa la yiraahdaa waxaa weeyaan waa in aad caddaysaa in daraasadda aad hadda diyaarinayso aysan cidna kaaga horeyn. Ma la socdaa? Gaab waxaa loo yaqaanaa waa inaad caddaysaa ama aad sheegtaa daraasadda hadda aad diyaarinaysid inaan hore loo qorin. Haddii daraasadda aad qoraysid haddii hore loo diyaariyey adeerow dembi bay kugu tahay. Daraasad goormee la qoraa markii problem la xalinaya. Problemka hadiiba la xaliyaba daraasad maxaa ka qoraysaa daraasadda akhrisan doono. Waayo qof u baahan ma jirtaba. Laakiin marka daraasad qoraysid waa inay jirtaa baahi. Mesela tusaale ahaan fiiri guriga cunto sababta looga kariyo maxay tahay? Qada la diyaariyaa, quraac baa la diyaariyaa sababta waa loo baahan yahay. Laakiin tusaale ahaan fiiri saaka hooyaa kacday guriga waxay ka diyaarisay quraac. Quraacdii 3 saac 2 saac waa la cunay. Markii quraacdii la cunay kadib ali hada jikada ka shakatay tirada quraacan diyaarinaya. Yani qof ku iimaanaysa kula cunaysa ma jirto waa may. Yani daraasadda aad diyaarinayso waa inay qof u baahan ay jirtaa. Haddii hore loo diyaariyay gaabkaas hooyaa saaka kacday gaabkii hore way diyaarisay. Gaab maxaa loo jeedaa? Yani baahidii saaka jirto quraacdii loo baahnaa way diyaarisay. Okay, adii quraacda labaad aad diyaarinaysa yaa ka raba waa marka. adli isdaalinaya waqti iska bixinaya qarashna iska bixinaya. Gaab marka waxaa loo yaqaanaa daraasadaada inaysan jirin qof hore u diyaarisay adiga aad kow tahay. Idan marka Soomaaliya markaa joogto waa inaad sheegtaa marka buuggan aad qoraysaa inaysan hortaa qof qorin inay la fahamtaa rajaynaya. Haddaad diyaarinaysaa marka qaabkee u diyaarinaysaa marka waxaa qaadanaysaa marka haddana waxaad diyaarinaysaa ciwaanadaada ciwaan la mid ah qaadanaysaa. Tusaale ahaan hadda Maxamed Saalax oo kale muxuu ka hadlayaa sidoo kale gaab waxaa loo yaqaanaa see u diyaarinaysaa haddana waa see u diyaarinaysaa waa haddana waxaa u diyaarinaysaa gaabka waxaa loo diyaariyaa
gaabka waxaa loo diyaariyaa daraasad aad isku dv tihiin laakiin aad kala iv tihiin. daraasadahaas lagaa doonayaa. fiiri, ninbaa wuxuu diyaariyey customer satisfaction and productivity. nin kale wuxuu diyaariyey training waxaa loo yaqaana employee training and productivity. nin kale wuxuu diyaariyey waxa loo yaqaano time management and productivity. idan fiiri marka intaan daraaso waxay iska saman yihiin dv-ga. okay, intood markuu kala duwan yihiin, kan ugu horey wuxuu ku doodayaa macmiilka inaad qancisaa ayaa kor u qaadi kara productivity-ga. mid kale wuxuu ku doodayaa shaqaalahaaga inaad tababartaa ayaa kor u qaadi kara productivity. mid kale wuxuu ku doodayaa time management inaad sameysaa ayaa productivity kor u qaadi kara. anaga daraasadeena maxay marka employee satisfaction and productivity. okay, marka anagana waxaan ku doodaynaa waxay tahay productivity kor waxa uu qaadi karaa inuu shaqaalaha qanacsan yahay. inteeda marka waa doodi karnaa. nin walba marka productivity wuxuu ka soo fiiriyey weji goonihi ka soo fiiriyey. anaga gaab waxaan ku qeexi karnaa marka inaan soo qaadana daraasado nagu dv ah laakiin aan ku duwanahay iv-ga aan kaga duwanahay. seen ku helinaa marka waxaan ku helinaa marka in Soomaaliya aan ku laabanayna waxaan leenahay mid kamid ah daraasadaha na geli. daraasadan oo kale hadda waxay ka hadlaysaa fiiri working condition iyo employee productivity ka hadlaysaa. idan marka ninkan wuxuu yiri marka employee wax soo saarkiisa waxa qeyb weyn ka leh working condition-ka. anagana maxaa leenahay working condition-ka maahane shaqaalaha inuu kugu qanacsan yahay muhiima. way la fahantaa malaya marka. hadda marka waxaa leenahay fiiri marka idan si ay gaabka u diyaariso marka in Soomaaliya imaanaysaa waxaa gelaysaa work midkan ugu horeeya gelaysaa fiiri markaad gashay kadib ciwaankan oo kale wuxuu ka hadlayaa marka working condition and employee productivity. waa isku macno marka dv-geena uu naga duwayaan laakiin working condition-ka ayaan ka simanaa marka. work fiiri marka waxaan leenahay marka buugan oo kale aan qaadanaynaa waxaan tegaynaa daraasadeena marka meeshaan daraasada ku diyaarinaynay mathalan kan oo kale cun down there marka dhahday kadib waxaa leenahay fiiri marka citation ugu horeeyaan soo qaadanaa marka waxaa leenahay reference citation add new resource marka dhahna waxaa leenahay buug dhammaystiran weeyaan. waxaa leenahay working condition buugan cun waxaa leenahay working condition marka working condition-kaaga marka waxaa leedahay buuggaana marka waxaan ka sameynaa marka citation ka sameynaa marka ciwaanka noo koobiyey waxaa leenahay control dheh halkaan noo geey. waxaa leenahay waa buugga title-kiisa waaye buugga title-kiisa weeyaan. horta labadan iska soo dhaweey buugga title-kiisa weeyaan. buugga title-kiisa aan diyaarinaynaa. title-ka markaasaan u diyaarsatid waxaan ka hadlayaa marka buugga aad diyaarinaysid yani gaabkaaga markaad sharxiysid. intaan markaa qortay kadib waxaa leedahay buuggan yaa qoray. waxaa qoray nin loo yaqaano cali yaasiin sheekh cali
ilaahay khayr badan ha siiyo, wax badan bay noo fududeeyeen authorka. Sidoo kale waxaa qoray yar kale oo walaalkeena oo loo yaqaano Cabdicasiis Cabdi Cali, halkan noo geey. iyo waxaa isla qoray engineer kale oo loo yaqaano Cabdiqani Cali Aadan. intaasi waa authorka ama qorayaasha buugga weeyaan. waxaa leenahay yearka sanadka la qoro buugga, sanadka buugga la qoray waxaa leenahay buugga waxaa la qoray 2000 kana 2013 halkan mujida 2013 city magaalada lagu qoray. kuley maadaama Soomaali laga diyaariyay waa isla Muqdisho sida aan rajeynayo. waxaa laga diyaariyay Department of Business Administration jaamacadda simadna ku taala magaalada Muqdisho ku taala. waxaa leenahay marka buuggan waxaa laga diyaariyay magaalada Muqdisho. publisherkeeda waayo, inkastoo publisher inta badan buugagtan lagu arag, laakiin publisher nimankan maysan noo cilaamin, inkastoo laga yaabo inuu ku jiro adigu inaad raadisay muhiim ku tahay, laakiin waqtiga saas u yeelaya. Cali Yaasiin Cali waxaa leenahay marka ninkan ama khiyaartaneeti studied waxay sharxeen ama ay baahin ka bixiyeen ciwaankan ah working condition and employee satisfaction in sub-Saharan Africa. intana usoo koobiyeynaysaa. that farta u yareynaysaa, waxaa leedahay lowerkiisa ugu dhig. sidoo kale okay, inta markaa qorto kadib sub-Saharan capital A ka dhig, sidoo kale kana capital ka dhig. kan markaa sheegtay kadib haddana waxaa leedahay gaab kala raadinaysaa adigoo ku laabanaya in Soomaaliya, mid kala gelaysaa. waxaa leedahay kan noogal may kan iska daa, buug dhammaystiran ma aha. buugga labaad wuxuu ka hadlayaa management efficiency and productivity relationship. buuggan kale wuuna anfacaya. waxaa qoray walaal loo yaqaano Jibriil Maxamed Muuse iyo Andrews Aydmir Basak, waa laga yaabaa Turki inuu yahay kana. labadooda soo koobiyeysanayna. waxaa leenahay haddana maxay hoosna geey. waxaa leenahay reference, insert citation, add new resource leenahay. waa buug dhammaystiran. buuggan markaan qornay kadib daraasadii aan cashirkeena halaas ku egyahay. buuggani ciwaankiisa waa kaas. private universities laga qoray in Soomaaliya laga qoray. waxaa leenahay authorka title-ka weeyaan. title-ka nooma ogolaanaya inaan wada dhammaystirno hal mar soo wada koobiyeysano. haddana waa u laabanaynaa of private universities aan qorayna. haddana inta markaan qaadano kadib waxaa leenahay authorka noo soo koobiyey. authorada waa labay ahaayeen soo maaha. mid wuxuu ahaa Jibriil Maxamed Muuse. Jibriil wax badan noo fudeeyay, ilaahay khayr badan ha siiyo. iyo kama u baahan iyo waxaa isla diyaariyay supervisorkiisa miya arday kale miya. wallahi Andrews on kule ninku waxa garanaya Aydmir Basak noo soo qaada sigana halkan noo keen. labadaas isla qoreen. buug goormay la qoray? buuggan waxaa la qoray 2000 sanadka hoose u soconaysaa. asna waxaa laga diyaariyay jaamacadda faculty of waa Turkiga weeyaan. mujida waa wadanka Turkiga laga diyaariyay buugganeed, laakiin wuxuu ka hadlayaa wadankeenu ka hadlayaa maadaama mujida private university in Soomaaliya laga qoray. yani resistance-ga ay degan yihiin meesha ay joogaan Turkiga ahaado doono, laakiin in Soomaali ahaana buuggan loo qoray. fahmaysaa malayna? waa Turki iyo isku dhex jiro Soomaali iyo English isku dhex jiro weeyaan. waxaa rabaa wadanka sanadka la qoray rabaa buugganeed. sanadka la qoray
sanadba ma caddayn nimankaniti, inkastoo laga yaabo inay meel kale ku caddeeyeen. maadaama meel kale aan lagu caddaynin, xaaladahan oo kale markay ku qabsato, buugna buug muhiima uu yahay aan laga tegi karin, qasab weeyaan inaad sanadka raadisaa. sidoo kale waxaa jira citationka meel lagu sameeyaa jiro oo loo yaqaano Mendeley loo yaqaanaa jiro. Okay, maadaama hadda buuggan waa isla weyne sanadkiisa, yacni inaan raadin waqti badan ay u baahan tahay, laakiin inaan raadisaa weeyaan marka daraasad dhaba qoraysid. anaga maadaama mid yar aan qorayno waqtiga maadaama si aan u dhoorano, dee waxaa iska gashanayna 2016 iska dheh. city magaaladanina waxaa iska dhahdaa kolley Muqdisho hadhiin, Istanbul iska dheh, maadaama Istanbul lagu diyaariyey. publisherkana waa daay waa ka tegaynay. labadan qofood ama labadan supervisoro waxay diyaariyeen studyed, waxay ka hadleen buugada ay sheeg magaciisa, ciwaankiisa ii soo koobiyey. labadaasay ka hadleen. waxaan leenahay inay ila fahmaysaa rajaynaya waxa aan qoroobo, yani xiisada ku cesho anaga orodaan ku qorayna saa dareemaysid. haddii aad tahay arday xiisada qaatana kolley waa isla wada fahmi doonaa, oo yani markaan isku nimaana isla arki doonaa. farta low ugu dhig. okay, intaanu diyaariyey marka. okay, marka intaan qorto kadib hadda gaab waa haystaa. marka gaabkeena muxuu ahaa marka? aniga wuxuu ahaa ciwaankeena employee satisfaction and productivity soo maaha. yarkan kore wuxuu ka hadlaya Cali Yaasin iyo Ilaahay qarasiye, waxay ka hadlayeen working conditions and employee productivity. sidoo kale kana wuxuu ka hadlaya management efficiency and productivity. labada marka gaabina noqon karaa anagoo in badan kala raadin karno, laakiin waxaan leenahay marka labadanati maadaama intaad sheegeen, marka waxaan leenahay it can be seen, waxaa la arki karaa that fiir marka that this above studies, in labadan daraase ee naga koreeyo inaysan cannot be seen, it can be seen, waxaa la arki karaa ama la dareemi karaa in labadan daraasadood ay ka hadleen leedahay. yani kana wuxuu ka hadlay working condition, kana wuxuu ka hadlay employee satisfaction. labada marka waxaa leedahay provide ama improve, waxay caddeeyeen what's affected ama waxaa dhihi kartaa maalan halan kale naga tirtir. intaan noo soo geli waxaa leenahay marka did not investigate the productivity at the side of employee satisfaction. oo maxaa weeyaan marka? waxaa weeyaan tusaale ahaan waxaa tiri marka it can be seen, waa la arki karaa baa tiri. horta halahan hoos noogee si toos iyada loo arko. it can be hadda gaabkaaga cadaynaysaa. waxaa leedahay marka it can be seen, waxaa la arki karaa that this buff studies, labadan daraasadood ee naga koreeya did not investigate, inaysan ka baarin productivity dhanka loo yaqaano employee satisfaction. maadaama marka therefore fiiri, therefore waxaan qoraya hoos ay kugu sii qorayihiin. therefore sidaa daraadeed problemka that kaasoo this study ee daraasada tani oo anaga aan qorayno addressed loo qorayo waxay tahayba is the investigate waxay tahay inay baarto the elementyada in which elementyada so drive maxay xambaaraya ama riixaya drive, yani wax kicin kara an employee
iyo kicinayaan employee labada daraf micnaheedu waa dimensionadii aan hor u soo qaado marka to satisfy taasoo maxay qancinaysa shaqaalaha si uu u qanco his work muxuu ku qanayaa his work shaqadiisuu ku qanayaa taasoo marka maxay increase taasoo kor u qaadayso the productivity waa la socdaa malayna marka internet marka naga tirtireedana idan marka gaabkaaga sheegtay marka labadana ku riixaya ku xambaaraysa sidoo kale sorry afahmaysa malayna kan waxa sameynaysa asigana waka hadda marka historical dimension keena oo dhameystiran aan qorno marka fahmaysa idan marka waxaan leenahay kan noogu soo dhaweey inoo calaamay calaamad jaalo noo mari sidoo kale in Africa calaamad jaalo noo mari okay in globally idna calaamad jaalo noo mari hadda waxaan hortiina ku diyaariyey buuggeena daraasadda oo la qaybtiisa koobaad oo ah historical dimension so sax maaha yes gaabkiisa marka waa tan inta ku sheegay in Soomaaliya qeexitaan yaraa soo qaadanay Cali Yaasiin wuxuu ka hadlay working condition employee productivity sidoo kale Basag iyo iyagana waxay ka hadleen management efficiency iyo productivity relationship idan marka waxa dhacna marka fiiri gaabkaaga maxaa waa hadii uu yahay marka macalinka halkaan professor halkaan ku aqrisanaya maxaa leenahay it can be wala marka fiiri marka it can be seen waxa la arki karaa that this above study in labadan daraasadood not investigate inaynan ka baarin the productivity at the side of the employee satisfaction sida daraadeed the problemko that this study problemka daraasadeena aan qorayno muxuu dhahay the problem fiiri marka the problemka that this study daraasadana anaga aan qorayno address sababta loo qorayo ama loo bayaaminayo waxay tahay in ka baarto elementiyada kaxeynaya ama wax ku dari kara employee-ga si uu ugu qanco shaqadiisa korna uu qaado waxa loo yaqaano productivity-ga idan halkaas waxa ku eg marka qaybta koowaad ee historical dimension-ka isbuuca dambe haduu Ilaahay ka raali noqdaasna waxa isla qori doonaa qaybta labaad ee loo yaqaano conceptual dimension-ka oo iyadana 4 qaybood u dhigmi doonto insha Allah taala waxaan kugula talinayaa in badan oo gacantaada u soo galo buugan loo yaqaan hagaha cilmi baaraha isagoo in badan yani daraasadaha aan qorayno iyo waxa aan sameynayno dhamaantood isagaan ka soo qaadanayna tusaale ahaan adawaa kana buuga hagaha cilmi baaraha waday waxaan soo qaadanaa diyaa cutubka 7 hadda marayna buuga daraasada wuxuu ka kooban yahay ilaa 7 cutub midna cutubkiisa koowaad oo kale wuxuu ka hadlayaa faham guud uu ka hadlayaa sahan maxaa la yiraahdaa sidoo kale wuxuu ku siinayaa terminolojiyada daraasadda ay ku shaqeyso ay kamid tahay wax loo yaqaan methodology maxaa la dhahaa secondary data maxaa la yiraahdaa primary data maxaa la yiraahdaa cutubkiisa labaad wuxuu ka hadlayaa مثلا maxaa laga doonayaa ardayga cilmi baaraha waxa laga doonayaa knowledgement cilmi inaan leedahay xirfad inaan leedahay ay kamid tahay xirfadaha aad u baahan tahay knowledge-ka u baahan tahay maxaa kamid ah waxa weeyaan daraasadda aad qoraysid inaad u dhiganto مثلا arday dugsi sare daraasadda ma qori karo knowledge marka waxa weeye arday semester 1 daraasad ma qori karo knowledge waxa marka waxa aad sameynaysid meesha aad u socoto meeshaad ka dimin aad taqaano sidoo kale inaad kala taqaano data research maxaa la dhahaa Google Scholar maxaa la dhahaa data DV maxaa la dhahaa methodology yani maadadan yani waxa loo yaqaan isha terminology-ga ku hadlayso inaad fahamsan tahay skills-ka maxaa loola jeedaa skills waxa weeyaan computer-ka inaad adeegsan karto inaad kala taqaano computer-ka wax loogu qoro Google-ka wax loogu raadiyo internet-ka sida loo adeegsado quality na leedahay semester-ka aad joogto motive inaad taho waxna adiga u baahan tahay wax lagu riixayo lagu qasbayna soo noqon preserve inaad noqonto independent inaad tahay qof aan qof ku tiirsan daraasadiisa asiga qoran kara inaad tahay waxaas wixii lamid ah marka cutubkiisa kale wuxuu ka hadlayaa asigana 25 inuu yaan jeclahay la wuxuu ka hadlayaa 21 yes generation topic research topic si loo soo xushaa inagoo qaybta hore ku soo qaada idan waxaan kuula talinayaa marka buugaas hagaha cilmi baaraha inuu gacantada soo galo insha Allah taala inaad kamid tahayna waa rajeynayaa ardayda xiisadaha gaarka qaata
inaga qaab waxaan xiisada u bixinaa, laba qaab waa u bixinaa. Kow inaan ardayga ku siino qaab zoom ah asigoo gurigiisa joogo inuu xiisada qaato, iyo inaan gurigiisa ugu tagno inaga wax xiisa yacni glass aan leenahay ma jirto. hadba baahida aa qabto ayay ku xirantahay. Mathalan haddaa chapter 1 fahamsanta oo kale chapter 2 labtoo kale waa laga caawinayaa, laakiin buugga daraasadaada anaga mas-uul kama nihin, mana kuu qori doono. laakiin waxaan awood u leenahay 2 bilood inaan buugga kugu siino wax loo yaqaano course kooban, course-kaas oo aad buugga sida loo qoray aad ku fahmayso. inta aad fahmayso waa nala jiri kartaa, mar haddaad fahanto adaa iska leh. hadhow ma ka aqbalayno professorka waxa igu soo celiyay kana waxa igu soo celiyay lagama aqbalayo. hada intaas waxaan nooga xiisadeenay ugu horeysay anagoo ka hadlaynay waxa loo yaqaano maxay, waxaan sheegnay page-keena noo celi. waxaan sheegnay maanta waxaan qoraynaa chapter 1 aan qoraynaa. chapter 1 waxaan ka qoraynaa qaybtiisa. chapter 1 waxaa loo qaybsay 9 qaybood. qaybtiisa koowaad waxaa loo yaqaanaa background of the study. background of the study waxaa loo qaybayaa baadhana 3 qaybood, 4 qaybood baa loo qaybayaa. qaybta koowaad waxay leedahay historical dimension, conceptual dimension, contextual dimension, theoretical dimension. laakiin contextual theoretical dimension lama qoro. historical dimension-kan waxaan dhahnay wuxuu ka hadlayaa DV-gaaga inuu xooga saaro daraasadaada DV-ga ka hadlayso adigoo uga hadlaya globally, continent, national in badan kuma sii laabanayo. globally maxaa la yidhaha waad fahamsan tahay, continent waad fahamsan tahay, national waad fahamsan tahay haddii aad buugga haysato. sidoo kale daraasadaha see loo soo degsadaa, markii aad soo degsadasa see loo kala hormarayaa. intaas baa waan soo aragnay inaad sameysanayso 3 qaybood. hadda hadduu professor-keena yiraahdo daraasadahaaga ii keena wax ka qortay in global halkaas ay ugu jiraan, in Africa halkaas ay ugu jiraan, in Soomaaliya halkaas ay ugu jiraan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.